golaha wakiilada Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay labadii xubnood ee xisbiyada wadaniga u soo magacaabeen gudida doorashooyinka Soomaaliya. Labadan xubnood ayaa horgaluhu u diideen. Gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliya ayaa ku dhawaaqay in labada xubnood ee xisbiyada wadaniga ee ka mid noqon doona komishanka cusub ee qaranka in mudanayaasha golaha wakiilada ay ansixiyeen. xildhibaanada ogol in loo codeeyo Cabdifataax Ibraahim Xasan gacanta taageero. Cabdifataax Ibraahim Xasan waxa uu codeeyay 49 xildhibaan idima diidin 3 xildhibaan waa aamusay gudoomiyuhu muu codeyn. Cabdifataax Ibraahim Xasan waxa saas ku yahay commissioner xildhibaanada ogol in la ansixiyo Maxamuud Saciid Sheekh Dalmar gacanta taageero. محمود سعيد شيخ دلمر كوبيا كنتر حلبان باسحيي عيدما ديدين هل حلبان با مسي غدوميهم مو codeyn sidaas oo ansax ku yahay. Labadan xildhibaan ee maanta la xansiyay labada gole ayaa hore u diiday in la ansixiyo Cabdiraxmaan Ordo